shirka golaha wadatashiga qaranka oo laba maalin ka socday halkan aqalka madaxtooyada ayaa goordhow la soo afmeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka soo xiray gabagabadii kulanka dhinacyadu waxa ay soo saareen war murtiyad lagu faahfaahiyay waxyaabihii laga wada hadlay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada ka soo baxay shirka kadib abaarihii oo daba dheeraaday degmooyin kamid ah dalkeena ayaa galay xaalad adag haddaba golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyay in dawladdu dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan waxaana la faray dhammaan hay'adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yareynta saameynta abaaraha goluhu wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay si buuxda isugu gurmadaan sidoo kale saaxiibada Soomaaliya ayaa goluhu ugu baaqay in ay laba jibaaraan taageerada gurmadka abaaraha goluhu wuxuu si mug leh u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka gaar ahaan kaalimaha ay shacabka reer Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada goluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimada ganacsatada dhalinyarada iyo haweenku inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuudka ka yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida goluhu wuxuu isku raacay in la dardar geliyo lagana miro dhaliyo wada hadallada Somaliland goluhu wuxuu u xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dawladnimada goluhu wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo iyo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gunaanadka shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa dul istaagay sida ay muhiimka u tahay in si degdeg ah dadka Soomaaliyeed oo iskaashaday iyo beesha caalamkuba wax uga qabtaan xaaladda ka sii daraysa ee abaaraha dalka waxa uu madaxweynuhu tilmaamay in dalku ay qatar ugu jiro inuu galo xaalad macluul ah oo ka dhalatay abaaraha muddada dheer soo jiray maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaartu sidii hore ka duwan oo ah deegaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ah ay abaartii inay macluul u gudubto oo dadkii xoolihii macluulay dhamaaday inay hadda macluul u gudubtay ku sii socotaa dadaalka hadda socdo ee dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantoodba ay u midaysiin wuxuu yahay sidii loo hor istaagi lahaa in macluul ay gaarto sidaas daraadeed mar kale annagoo wada jir codkeena waxaan ku kabaynaa beesha caalamka u sheegaynaa Soomaaliya waxay caalamka ka codsanaysaa in la hor istaago oo dadaal badan la geliyo duruufaha abaaraha ee deegaanada kala duwan ee dalka ka jiray in aanay macluul u gudbin sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab madaxweynuhu waxa uu bogaadiyay halganka dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka ee iskaashanaya ay kaga hortageen nabadiidka al-shabaab waxa uuna tilmaamay in dawladdu aysan karaankeeda la hari doonin in waqti dhow dalka looga soo cirib tiro argagixisada al-shabaab dagaalka muxuu ahaay lagula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican u marayaa waa dagaal waa dadnimadii iyo xurriyaddii iyo dhowristii daafici diinteena ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka Soomaaliyeed dhan ay ugu jiraan maanta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaas ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dawladana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacabka muxuu ahaay nimanka nabadiidka dalka laga xoreeyo xubnaha golaha wadatashiga qaranka ayaa dhawaan kulmi doona mar kale si ay u sii anba qaadaan wada hadallada ku aadan arrimaha hortaminta ula dawladnimada Soomaaliya waxa ayna tani qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan iskaashiga midnimada iyo wada jirka mas'uuliyiinta iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka